السلام عليكم أصحابتي كلنتي isku soo noqod wanaagsan kuna soo dhawaada Ayub Ahmed podcast iyo mowduuceena maanta oo ah way kaaga dhamaatay ha isku sii dajin shay kasto adduunyada yaala wuxuu leeyahay taariikh uu dhaco xiriirada bini'aadamka ka dhaxeeya waxa jirta waqti ay bilowdaan waxaana jirta waqti ay dhamaadaan kuwa kooban oo aan loo qorin baase jira inay dhamaadaan oo iska socda ilaa labada qof cimrigoodu uu dhamaado waana tan waxaan filayaa qof kastaaba uu ku riyoonayo waxaa jira xiriirada qaar mar hore waqtigooda aad kala dhamaateen laakiin adigu rabitaanka aad rabto wali aad isku sii dajinayso waxaan iradaa tani tusaalaheedu waa sida qof xarig meel dheer ku xiran labada lugoodna dhulka ka qaaday gacantana intuu ku duubay ku haysta waxaan shaki ku jirin in xariga markastood ku sii dhigantood ka laadlaadaba in gacantaada uu dhiigu marba marka ka sii dambayso uu ka sii xirmayo xubnaheeda xanuunka gacanta aad ka dareemaysaana laba mid bay noqotaa haddaad sii daysana xanuunku waa ku sii dayn haddii aad ku sii dheganaatana xanuunku waa kugu sii badan haddaba toddobada qodob ee podcastigan kugula wadaagi doonaan ugu magac daray way kaaga dhamaatay ha isku sii dajin midda ugu horreysa waa marka qofku uu kugu qasbayo in aad noqoto qofku isagu rabo u fiirso kuma oran wuu rabaa oo keliya waxaan ku iri qofku markuu kugu qasbayo qasbitaanku wuxuu keenaa in dagaal yimaado in labadiinu aad iskhilaaftaan deganaantii meesha ay ka baxdo cuqdadii inay bilaabato qof walbaaba qofka kale inuu difaaciyo isilaalin ka galo haddii qofku aad aragto inuu kugu qasbayo waxa isagu uu rabo taa macnaheedu waa kugu maqanacsani walow markii horeba siduu kugu bartay aad tahay oo waxba aysan iska kaa bedelin bini'aadamku sidoodaba qasbid waxba kuma laha xataa carruurtaa dhashay ha noqoto gabadhaad qabto ninka ku qaba walaasha walaalka saaxiibta qofka kuu shaqeeya qasbidda wax wanaagoo sideedaba ka yimaada ma jirto way dhici kartaa xaaladaha qaar qofku inaad wax ku qasabto uu kaa qaato laakiin dan weyn oo kugu xiran oo qofkaasu uusan ka maarmi karin baa keenaysa markaa wixii ka dambeeya dantiisu meeshay ku eg tahay baa adiga inta uu kuu qasban yahayna ku eg tahay haddaba ujeeddada qodobkani uu xambaarsan yahay waxay tahay labada dhanba ma wanaagsana in la isqasbo haddiiba aad aragto naftaadu inay rabto qof inaad wax uusan ahayn ka dhigto micnaheedu waa qofkaa kuma qanacsanid adiga laftigaagu maxaad waqtigaaga isaga luminaysaa haddii aad aragto qofku inuu kugu qasbayo tusaale mararka qaar waxaa dhacdo qofku meeluu kuu soo maruu waayey si uu xiriirkan uga baxo ma yaqaan dadka waxaa jira dad aan lahayn karti iyo awood ilaa waxa Soomaalidu waxay tiraahdaa xalaal barqacad baa la qashaa si toosoo cad waxba kuuguma sheegi karaan wax marka ay og yihiin aadanna ka tagin kana tanaasulaynood ku dhegantoo mintid ku tahay buu qofku miiska kuu keeniyo ku oran haddii aadan shaygan ka tagin anaa kaa tegaya markaana dabcan way sahlantahay markaad aragto qofku inuu hanjabaad iyo weerar ku yahay nabadda qalbigaaga iyo deganaanta maskaxdaada shaki ma lahan inuu qofkaasu noloshaada ka baxo oo aad sidii aad u noolaydee wanaagsaneedee naftaadaad ugu faraxsaneed inaad u noolaato waxay kaga fiican tahay ma jirto qodobka labaadna wuxuu yahay marka qofka ficilkiisa iyo hadalkiisu aysan islahayn oo welibana ay kuu caddahay xaaladaha qaar baa waxaa dhacda in ilaahay xataa qof kuu soo diro oo wixii aad iska indha tirtay xataa uu damco inuu ku maqashiiyo ood dhegahana xataa ka sii xirato badanaa qof maanta qof la socda haddana u jeeda qofku inuu wax isdaba marinayo qofka inay wax si ka yihiin in hadalkiisa iyo qofka ficiladiisu aysan iswaafaqsanayn markaa tusaale ahaan baabuur soo gadanayso meesha ugu qaalisanay waa xaggee waa matoorka haddii matoorkiisu uusan xoog lahayn ama matoor duqoobay uu saaran yahay qolofku si kastuu cusub yahay miyaad gadan waa maya qiimaha lagu dul saaray kama bixinaysid qofkan waxa uu ficiladiisa aad arkaysaa ay ka imaanayaan waa xaggee waa qalbiga haddii qofku uu xumaan samaynayo oo uu ku yiraahdo aniga qalbigaygu waa nadiif dema qulubtan daalacana waa maya ilaahay baa qalbiyada waxa ku jira waxa qofka lagu xukumi karaa waa ficilka iyo waxa ka dhacayaad ku arkayso way dhici kartaa mararka qaar qofku inuu kula socdo oo xiriirka intaad leedihiinba uu ku caayo haddana saasoo ay tahay aad rajo ka qabto berri inuu hadal wanaagsan kugula hadli doono intee jeer bay dhacdaa oo dadtale isoo weydiiyaan oo markaan dib u noqdo qofka waraysto aan ogaadaa qofkan waxa hadda uu sheeganayo maalintii ay sahlanayd buu ka soo tallaabsaday haddaba qofka inta aad maanta la socoto way waxaad moodaa dadku goor dambe ayay xal raadiyaan Soomaalidu waxay tiraahdaa goor mindii uus ku tagtay qof xanaaqsan oo qaylinayo dhankaaga u soo ordayo mindi gacanta ku sita dee ma fadhi baa kuu yaal hadda waqtigan aad wada joogtaan baad qofka dhaqan xumadiisa u jeedaa ma waxay kula tahay berri inuu wanaagsanaan doono ma waxay kula tahay oo berri xaggee buu ka keenayaa wanaagga hadda adigii naf ahaantaadii uu kuu jeedood hor joogtood wanaajinayso ayuusan si wanaagsan kuulaba dhaqmi karin
haddaba waxaanaad isku qancinayso iyo khiyaaligan qofku lacag buu leeyahay qofku wuu qurux badan yahay waad arkaysaa maanta dadka jilicsanaanta bulshadu sida ay meesha ay dhigtay waad u jeedaa waxyaabihii qarsoonaa ee albaabada gudahooda ku jiray cidina aysan ka warqabin bay dadku maanta meel walba kaga sheekaynayaan ninkaygu wuxuu ahaa sida xaaskaygu waxay ahayd sida macnaha waxyaabaha la yaabka badan bay ka mid tahay inaad aragto qof marka hore wanaag kuu soo bandhigaya sida ay labadaa qof isu jecel yihiin gurigooda iyo quruxdooda inaad aragto haddana labadii mid ka midii inuu soo noqdo oo internetka la soo dhex istaago soomaaliyay qofkii waanu kala tagnay oo maanaga ku guurnay markii hore yaa kugu daray maanagaa joognay mise waadna casuuntay namadan casuumin adaa guursatay qofkan shalna wanaag baa laguga arkay bal wanaaggii maad ku dayso maanta waxaad moodaa bulshadu jilicsanaanta heerka ay joogaan inaysan xataa ilmaha ay dhaleen u jixinjixayninoo xataa kala jeclayn waalidka internetka intuu soo fadhiisto ilmihiisa berri mustaqbal waxay daawan doonaan kaydka internetka ugu reebaya bal waxaad suuraysataa wiilkaaga ama gabadhaada oo ku daawanaya adoo cidda aad caayaysaa ay tahay waalidkii subxaana allah hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahun dharkaagaad caayaysa qofkan wanaag baa idinka soo dhex maray mar baa kalgacal idinka dhexeeyey walaa tansawu alfadla baynakum miyuunan wanaag lahayn qofku ma dhici karto qof xumaan socotoo miiran ah qof walbaaba in xun iyo in wanaagsan buu leeyahay aniga hadda kula hadlayaaba qayb xun ilaahay kuma tusadee qayb xunoo leeyahay baa jirta subxaan allah marka qofku uu malaa'ig iska dhigo oo internetka soo fadhiisto dadku ma caqli la'a qof walbaana way adag tahay inuu si dhaba kuu aamino ilaa inta xamaasadaysan ee rabto uun keliya rabshadda inay ka shaqayso inta rabshadda ku shaqaysa ku kacday ku seexatay habeen iyo maalinba u taagan rabshadda inay arkaan dhegaystaan intaas waa laga yaaba inay ku sacbiyaan intaasuna waa iska maangaabta laakiin xaqiiqadu waxay tahay bulshadu maanta jilicsanaanta aynu uga jeedno qofku dantiisiibu wuxuu uga tegayaa jilicsanaanteeda darteed qofkan aad u jeeddo hadalkiisa iyo ficilkiisu inuu iskhilaafsan yahay xaggeebaad ula sii socotaa wakhtiga aad ku sii bixinaysaa kula qiimo darana markaad aragto qofku inuusan islahayn qori iyo qaaci waa la isla tuuraa qodobka saddexaadna wuxuu yahay qof aad isku qasbayso si uu kuu jeclaado badanaa qof aad farriin u qorayso oon kaaga soo jawaabayn badanaa qof aad wacayso oon kugu soo celinayn badanaa qof aad u murugaysan tahay oo isagu iska faraxsan badanaa qof aad cuntada uga go'day laakiin dharagsan badanaa qof dartii aadan la seexan laakiin isagu hurdoo raaxaysanaya haddaba qofka markaad aragto inuusan dan kaa lahayn weliba gaar ahaan waxaan idhaahdaa 100% haddii aad gabar tahay nin waxbaha u sheegan inaad wax dareensiisay inaad ka heshay waa macquul laakiin inaad si toos ugu tiraado waan ku rabaa raggu way ka cararaan inta badan rag soo hara way jiraan laakiin kuwaasuna inaad u jilicsan tahay bay 100% hubaan inay kaa faa'iidaystaan bayna u badan tahay adiguna maadaama dareenka ilaahay uu dumar ku abuuray ee xishoodka ah aad ka soo tallaabsatay waxay u badan tahay waxaa la yidhahdaa lax walbaa meesha isdhigtaa lagu gowracaa waxay u badan tahay intaa lagaaga faa'iidaysto oo markaa aad gabarnimadaada ku weydo oo markaa laga yaabo sharaf dhac inaad kala kulanto haddaba gabadhu sideedaba inay ninka wax u sheegato inay wax dareensiiso waa tan hadda idin leeyahay waa caadi laakiin inay si toosoo cad ugu tiraado raggu sidoodaba waa libaaxiyo libaaxu ma dhici karta libaax in uu dhurwaa wuxuu soo dilooday cuno libaaxu badi waxa isagu uu diloodo weliba xataa shay neef bakhtiyo meel yaalla ma cuno inta badan midka dhiiggiisu markaa kulul yahay buu cunaa ninka raggaay waxay kaga wanaagsan tahay ma jirto inuu isagu ugaarsado inuu isagu ku shukaansado inuu isagu kaa daba ordo waxay kaga wanaagsan tahay ma jirto dhanka kale waan ka soo horjeedaa markaan arko nin weyn oo garya gafuur lahoo dhammaystiran oo ilaahay uu lixaadkiisa u dhammaystiray oo hooyadii ay gabar guursado u raadinayso waxaan radaa eedo haddii ninkan aad maanta gabar u keento yaa berri u dhaqaya tusaale ahaan haddii dibi weyn geesihiisa laguu dhiibo adoo fulaya ma sii hayn karaysaa bay kula tahay waad sii dayn markuu xoogaa yar dibigu kula rarrafto marka waxaan radaa qofka adigu aad isku qasbayso ood rabto inuu ku jeclaado ood rabto inuu ku raboodo waxa aad samaynaysa darteed kuma imaanayso inuu isagu doono unbay ku imaanaysaa xaaladahan oo kale markaad rabto qofka inaad qasbayso xataa waxaa laga yaabaa wiil haddaad tahay ood gabar wax u soo bandhigato an waxaan radaa 3 goor ka badan waaba kugu qaladba inaad wax u sheegato daba ordo haddaad wax u sheegato ood aragto inay kaasii jeedo weliba gaar ahaan hadday ku tiraado wiil baan la socdaa dee nin raga iska dhig nin bay la socotaa walaalkaya ka leexo anigu waxaan radaa maaqaan ma masayrkaygaa tira badan waa laga yaabaa way dhici kartaa waxaan aaminsanahay qofka adduunka ugu masayrka badan inaan ahay
haddana markaan haddayba dhacdaba gabar aan wax u sheegto tirada nin baan la socdaa bartaas ay ugu dambaysa lagama yaabo markaa wixii ka dambeeya inaan isku qasbo way waxaan aaminsanahay waxa anigu aan rabo cidna lama qaybsan karo ninka raggaana taasaa laga rabaa inuu ninku yidhaahdo bal anigana fursadayda isii bal anigana maxaad isugu qasbaysaa meesha waxaa layidhahdaa ma naqaska biniaadamka ka baxaa ciriiri jeclaa qofku maxaad isugu qasbaysaa meesha qof baan la socdaa markay ku tirado waa laba mid uun ama waa kuma rabo ama waa ka dhabo qofkaasay la socotay rabtaa adiga labada dhanba kuma rabto maxaad isugu qasbaysaa marka sideedaba inaad qof isku qasbaysa markaad aragto waxbaa kaa khaldan tusaale ahaan waxaa dhacda qofkanaad isku qasbayso inuu hadda qof la socdo markay isku soo xumaadaan baad adigu haddii kale waxaad noqon doontaa boosteejada uu ku sugo qofkaas soo noqoshadiisa intii marka lagugu dangaari lahaa qalbijab aadan xamili karayn aad sii qaadi lahayd lagu isticmaali lahaa xaaladaha qaar waxaa dhacda xoolahaaga in la isticmaalo xaaladaha qaar waxaa dhacda fikradahaaga in la isticmaalo xaaladaha qaar waxaa dhacda waxyaabaha khayraadka ilaahay ku siiyey in lagugu dangaaro marka dantaa lagaa dhammaystana in cidlo lagaaga dhaqaaqo haddaba markaad aragto qof inaad qasbayso si uu kuu jeclaado waxbaa khaldan qofkaasuna ha sugin naxariis iyo turitaan iyo fahanuu ku fahmo iyo markaad iskhilaaftaan baaba kuugu daran wuxuu ku oran shalay baad ay khasbayso daboordayso kuma raba sootaan ku eri intii hadalkan naxdinta le dhagahaagu ay maqli lahaayeen oo qalbigaagu ku jabi lahaa inaad qofkaa faraha ka qaadaa maanta danta kuugu jirtaa midda afraadna waxay tahay qofka jabiyey kalsoonidii labadiinna idinka dhexaysay kalsoonidu waa sida quraaradoo kale dhala jabtay rajama laga qabaa dabcan maya qashinkaa lagu daraa haddii kalsoonidu ay burburto waxaad ogaataa qofka nabaddii idin dhex taallay waa dhammaatay mase dhici kartaa inaad qofka jeceshahay aadanna ku kalsoonayn haa way dhici kartaa inaad qofkii jeceshahay laakiin kalsooni aadan ku qabin laba daran mid dooro ayaa taagantay in qofka aad xiriirkiisa sii waddo reer wada dhisataan adoon kalsooni ku qabin jacaylkaa dartiina aad u gasho waa macquul qofkaasu kalsoonidii aad ku qabtay muddo markii uu joogo inuu dib u soo celiyo oo wixii labadiina kalsooni darrada keenay meesha inuu ka saaro waxayse u badan tahay sida loo jeedo in kalsooni darrada qofkan shalay wixii keenaya uu la yimideed ku qaadatay in uu barina soo celiyo taas waxay keentaa in qofku uu niyad jabo inaad qalbi xumaato inaad habeen iyo maalinba nasan weydo nolol waad haysataa reer waad leedahay laakiin qalbiga kama deganid reer walbaaba meesha uu wax ka yahay ma ahan guri ballaaran oo weyn oo qurux badan oo lacag badan laga bixiyayo baabuur iyo waxyaabo badan oo qaaliyo isku qoofalan ma aha gurigu waxa uu wax ku yahay waa qalbiyada yaryar ee gurigaas soo gelaya ayuu gurigu wax ku yahay hadduu gurigu si kasta ciriiri u yahay hase yeeshee qalbiyadu ay sufayow yihiin gurigu guri ballaaran oo waasaca weeye haddii laakiin gurigu uu ballaaran yahay oo cir iyo dhul intay isu jiraan uu gurigaasu isu jiro hase yeeshee qalbiyadaasu ay isu cuqdadaysan yihiin oo aysan isku kalsoonayn oo ay wax kala tabanayaan gurigu wuxuu noqonayaa ciriiri haddaba intaad maanta qofka la socoto haddii aad aragto in qofkan si walbaba qalbigaaga markaad u eegto kalsoonidii jabtay aadan soo celin karaynin ilan waa laga yaabaa qofku inuu ficilo la yimaado uu isugu dayay inuu kalsoonidii mar labaad kabo oo sidii hore kugu soo celiyo laakiin adigaa weli waxaad iska la'dahay inaad qofkan ku kalsoonaato taasu waxay keeni doontaa markaad berri nolol isla wadaagtaan inaad intaa qofka daba taagnaato isagoo qofku isbedelayoo dhab ka tahay ayaana aakhirka waxaa dhacaysa isagu inuu kaa dhaqaaqo jacaylkan marka hadda aad u qabto iyo kalsoonida qofkan aad u haysaa haddaynan labadoodu wada soconin waa mushkilad jirta intaad hadda maanta la socoto kalsoonida isku day in qofka si fiican ugu fiirso mararka qaar wuu ilaahay subxaana wa tacaala qofku intuu dembi galo toobad keena waa la cafiyaa adigu bini'aadan baa tahay waa sax laakiin wixii kalsoonidaa burburiyey hadduu qofku isku dayayo inuu sallaxo kaa raali gelinayo dib dambe uguma noqonayo uu ku leeyahay mar walbana aad u jeeddo qofku inuu dadaal ku bixinayo siduu qalbigaaga mar kale u hanan lahaa fursaddaa naftaada u oggolow haddiise intaa kadib aad aragto inaad isqasbaysay qofkan rabitaankii aad u haysay xataa inuu dhaawac soo gaaray intaa wixii ka dambeeya wakhti ha iskaga sii lumin qodobka shanaadna wuxuu yahay qofka aan fikirkaaga kuu oggolayn in la kala fikrad duwanaada waa caadi in la iskhilaafaana macnaheedu maaha inaan la isjeclayn bini'aadamku waa kala fikrad duwanaan karaan laakiin tanaan ka hadlayo waa nooc gumaysiga maskaxda ka mida mana ahan isaga wax ku saabsan waa wax adiga kugu saabsan kuma oran fikirkaaga ma oggola ee aduusan kuu oggolayn labayna kala yihiin qofku in fikirkaaga uu diido inuu kugu khilaafo inuu wax ka sheego inuu dhinaca kale meesha ay ku wanaagsanaan lahayd uu wax kaa tuso waa goonideeda isagaa xor u ah
laakiin markuu adiga kaa hor istaagayo oo ku oranaya fikirkan maya sidii ilmuhu dhalay waa nooc gumaysiga maskaxda ka mid ah dadka qaarna markaad u sheegto tiraahdo caafimaadka maskaxdaada dani uguma jirto qofkan waxay u arkaan in qofka lagu dirayo in qofka laga hor keenayo in laga xun yahay in la xasdayo iyo wixii la mid ah iyadoo xaqiiqada muuqata ay tahay qofkan inaysan dani kuugu jirin agtiisaba nabad kuma dareentid intaad wada joogtaan sow ma ogid dad badanoo maanta isqabaa sidii iskaabuladii inay u nool yihiin oo laba qol kala seexdaan oysan isla hadlin oysan waxba isla daawan oo naxariistii iyo kalgacalkii iyo wanaaggii qoys lagu yaqaanay inaysan jirin laba caagoo guri dhex joogta inay yihiin maxaa keenay bay kula tahay waayo gumaysigii xiriirka ku soo bilowday baa guriga gudihiisa la isugula yimid markii awlaadi timidna awlaaddoon baan isku korsanaynaa bay ku hartay taasu nolol ma ahan haddaba markaad aragto qofku inuu fikradahaagaba ay tahay waxa uu kaaga tegi karo qofkaasuu rabitaanka uu ku rabaaba waa waxaad isaga yar waa qof xataa caqligiisu gaaban yahay waa qof xataa fakarkiisu uusan fogayn qof fikrad aad leedahay kugula dagaali kara fikraddu meeshan waxaan baraarujinayaa haddii ay tahay waxaan ka reebayaa in wax diin ku saabsan tusaale ahaan aayad qur'aana diiday tusaale ahaan axaadiidta rasuulka sala allahu caleyh wasalam baad dafiraysaa tusaale ahaan culimmada caydoodaad u taagantay u tafaxaydantahay waxyaabaha qofku waa kaaga tegi karaa waayo dhaqan wanaagsan ma aha cid kasta oo dhaqankaa ku sugani ma ahan dad sharaf leh ma ahan dad wanaag diinta islaamka wanaaggii ee la timi dad ka turjumaya ma ahan qof aayad qur'aana dafiraya oo xadiid dafiraya oo diinta oo dhanba balaayada adduunka ka jirta ah qofkaas ka carar balaayo ka weyne ma jirto la socodna ma laha inkastoo dad badan ay jiraan taariku salaad bay gabadhu la socotaa markaasay leedahay xaqaygii buu garan waayey markay berri isku dee fogaadaanoo awlaadi timaado shalay buu taariku salaad ahaa rabbigii ka furtay waxay kula tahay inuu xaqaaga garanayay maanta gabdho badanoo sidaasaa jira surweel bay xiran tahay madaxaa u bannaan waxay rabtaa xaqeeda inuu garto iyadu xaqii rabbi ku lahaa may garanaday hadduu yidhaahdo is-astur tusaale ahaan ilaahay ka cabso sidani kuuma wanaagsana waxaa laga yaabaa inuu aragta inuu gumaysanayo subxaan allah laakiin fikir ee iyadu leedahay goonideeda hadduu kaga hor yimaado waxaa laga yaabaa inay la sii socoto oo rajo ka qabto berri inay gabar wanaagsan oo guri wanaagsan dhista oo isaguna nin u wanaagsan inay noqon doonaan labadoodu dad badanoo marka waxaa jira sidii iskaabulada u nool wax kalena ma keenine waxyaabaha gumaysiga ee liidashada ee bahdilaadda ee qof walbaaba xiriirka uu ku soo qaatay baa dantu waxay badday awlaadda unaan isku korsanno hadda wayna u jeedeen shalay waxaan inay wax xun yihiin haddii loo sheegana waxay u arkayeen in la isku dirayo ilaan caqligoodu gaabi intuu ka qabo ma fahmi karin meesha laga hadlayo iyo xeeldheeridiisana qofkani waxa uu sheegayo marna umaynan fiirsan haddaba maanta qofka intaad la socoto inuu fikirkaaga kugu khilaafo iyo in fikirkaaga uu kuu diidan yahay ku kala baxsanaato hadduu fikirkaaga kuu diidan yahay gumaysiga hadda qofkani uu rabo inuu ku geliyo berri ha sugin inuu ka roonaado ama uu isbedelo gumaysigu waa sii kordhi doonaa maalinba maalinta ka dambaysana waxaad gaari doontaa ood arki doontaa qalbigaagu isagoo qofkan kalgacalkii aad u haysay maalinba qayba ay tirtirmayso marka dambena aad soo istaagaysa faaruq eber ah oo aan kala tagna maahane wax kale aysan ku harin markaa hareerahaaga fiiri waxaan kuu hubaa in aad Manchester United team dhan oo hareerahaaga taagan aad arki doonto ha sugin marka intaa fog qofka intaad isla gaaraysan haddaa maanta tala leedahay haddaadna wax ka qaban kartaa qodobka lixaadna wuxuu yahay qof aad mar walba u tanaasusho isaguna inuu kuu tanaasulo iska daaya xaalado badan khalad uu leeyahay dusha intuu kaa saaro uu rabo inaad tanaasushood qaadato tani waa mushkilad weyn oo jirta weliba gaar ahaan marka bannaanka aad kala joogtaan kama hadlayo laba qof oo isqabta waxaan ka hadlayaa waa laba qof oo uu xiriir ka dhaxeeyo markaasaa wax la badbaadin karaa laakiin marka ay xaaladi fogaato oo awlaadi meesha joogto oo reerku uu ballaartay mushkiladiisu waa weyntay marka tan hadda aan ka hadlaya aad bay u gaabantahay una yartay mushkiladeedu haddaa la xallin karaa haddaba qofku markaad aragto in khaladaadkiisa uu ku saarayo in tanaasulka adiga uun maahane cid kale aysan ka socon dhankeeda waxaad ogaataa shay walbo adduunka yaalla in loogu talagalayo culayska uu xamili karaa jirta qaar waa jabaan qaar waa dumaan qaar waa qalloocdaan qaar waa dilaacan iyo wixii la mida qoysaska in badanoo ka midoo maanta waddadii ay ku dumi lahaayeen haya kuwo badanoo hadda la dhisi doono laga yaabo mustaqbalkana inay dumaan iyo kuwo horoo dumayba waxay ku dumeen waxyaabaha qaarkood tanaa ka mida in hal qof oo keliya la raro hal qof baa dulqaadka laga rabaa hal qof baa laga rabaa inuu ixtiraamka la yimaado hal qof baa laga rabaa inuu kalgacalka la yimaado hal qof baa laga rabaa inuu wax koolkooliyo hal dhan baa loo janjeeraa haddii baabuur weyn hal dhinac keliya laga raro
dee taayirada dhankaa laga rarayo culayska loo badiyey baa qarxaya ama marka dambe dhinacaas uu u dheelinoo wuu gadoomi shaki kuma jiro qoysaska maantana wax kale ma haystaan hal qof baa wuxuu rabaa in isaga uun cagaha loo dhaqo madaxa uun loo salaaxo khalad kastoo uu garana la yidhahdo rag iyo dumarba waa leeyihiin meeshan labada dhanba mid aan la jiraa ma jirto dumar badan oo madaxa inta loo salaaxo la wanaajiyo wax walba loo samay haddana tayda weli sii leh baa jira rag badan oo saasoo kale la wanaajinayo oo wixii qof bini'aadama lagu wanaajin lahaa ama qof bini'aadami maanta uu nolosha ka rabi lahaa gurigiisa ku haysta laakiin haddana laga nasan la'yahay baa jirta marka intaad qofka wada socotaan haddaad aragto tanaasulkaagu inuu badan yahay xaaladaha qaarna uuba kugu gardaroonayo kula soo aadaya khaladaadkiisa uu raba inaad adigu qaadato waa mushkilad qofka isaga naf ahaantiisa haysatee mushkilad guri ha la gelin hadda intaad maanta bannaanka kala joogtaan waxay kaga sahlan tahay ma jirto qofka inaad xiriirkiisa faraha kala baxdo qodobka toddobaadna wuxuu yahay qof uusan waalidkaa raalli ka ahayn labada dhanba kay doonta ha noqoto rag iyo dumarba haddii waalidkaa uusan qofkan raalli ku ahayn qasab maha inay labaduba isku raacaan haddii mid ka mid ihii uusan raalli ku ahayn dantu waxay kuugu jirtaa qofkaa inaad iska dayso macnaha waa kaaga dhammaatay qofka mar haddii waalidkaaba uu far ku fiiqo qofkan uu ku yidhahdo qofkan kamaanan helin dantuna taasay kugu jirtaa haddaad ku adkaysato berri markay mushkilada ku qabsadaan ilaan waalidku gar iyo gardarraba markay ku habaaraan habaarkooda waa kugu dhacaya iga qor hadalka qofka raba inuu ogaado xaqiiqadana ninkii la oran jiray Jurayj ee Riyaadu Saalixiinkana qisadiisu ay ku jirto dib ugu noqo wax badan baa kuu soo baxaya waalidka inaad dhagaysato dantu waxay kuugu jirtaa inaad maqasho ood adeecdo raalli ahaanshahoodu waa raalli ahaanshaha rabbiga ku abuurtay hadday kaa caroodaanna rabbi baad caragelin haddaad ilaahay caragelisana waxaad ogaataa adduunkan iyo naftan kugu jirta iyo feerahan yarba ilaahay baa iska leh inaad noloshatan ciriiri ku mudato oo waalidkaa karahsi ay ku karahsanayaan darteed dhibaatooyin aad ula kulanto oo ilmahaagu berri waxaad iyaga ku samaysay ay berri kugu sameeyaan miyaad sugi ma intaasaad isku maqiiqi oo isku adkayn haddana kaagaba darane bini'aadam weeye waxa kanaad raacaysaa bini'aadamna abaal ma lahan ina alinsaana lirabbihi lakanuud rabbigii abuurtay buu nicmooyinkiisaba dafiraa uusan ku mahadin ma waxay kula tahay wanaagaad adigu leed inuu garanayo ma waxay kula tahay in uu kugu qiimeynayo ama kugu sharfayo si kastood waalidka u soo khilaaftay isaga u soo raacday may hal maalin oo khalad uu kugu arkaa laga yaabaa qofkaas inuu kaaga tago xag ilaahay uunbaaba mushkilada idinkaga imaanayaanba intii marka halkaa fogaad gaari lahayd oo inkaariya habaar waalidkaa ka yimid uu meel dhexe nolosha kugu qabsan lahaa xaalad xataa aadan weydiisan karin inay ku cafiyaan oo dhici karta inayba dhinteen adduunka intaad maanta joogto si fiican uga fiirso hadalkooda dhegayso baarinimada aad iyaga u samaynaysa ayaad ku aflaxaysaa adduunkanna guul ku gaaraysaa adduunkanna khayr iyo barwaaqo badan ku helaysaa laakiin qofaad shala la kulantay iyagaa ku dhalay iyagaa ku soo koriyey iyagaa ku soo tarbiyaday iyagaa ku soo badbaadiyey xaalado badan noloshaada iyagaa noloshaada oo dhanba iska leh adiga iyo waxaad leedahayba iyagaa ku leh bal ka warna iyagii baad ka carari qofaad shala la kulantay baad rabtaa inta hoosta ka gashay inaad aaminto qofkaas inuu ku daynayo oo intee baa la gowracay oo intee baa la dhaawacay oo intee baa la xumeeyey oo intee baa cidlo looga dhaqaaqay oo meelay u cararaan waayey ilaan meeshii ilaahay uu ka abuuray ay ahayd inay dib ugu cararaan oo dugaashadaanba waa soo gubeen oo isku xumeeyeen haddaba buundadan adduunka waad u baahan doontaa ha iska gubin haddaad aragta waalidka inuusan qofkan raalli ku ahayn dantu waxay kuugu jirtaa qofka intaad la hadasho inaad ka dhaadhacsiiso waxna fahansiiso haddii xataa uu diidana inaad iskaga tagto waayo habaarkay ku habaaraan iyo qalbigooda dhibsiga uu ku dhibsanayo ayaad lug iyo laba uga go'i doontaa iga qor hadalka haddaba waxaad ka shaqaysaa wixii danta kuugu jirto dantaada inaad gaartana yaysan kugu xambaarin inaad u marto bini'aadamka kale dulmigooda waxaad ogaataa nabsiga shayga la yidhaahdaa waa soo daahaa ma ogiya ha sugin inuu ku seego intaad nooshuu ku helaya waxaad kasbato maalin uunbay ku sugayaan adduunkan intaad joogto bini'aadamka ha dulmin qofkaad u bogi weydo adduunku waa ballaaran yahay inaad dulmido ood silciso ood rafaadiso oo kabacdina isagoo mayd ah aad idlo uga dhaqaaqdo ama aad mayd garaacdo waa laga fiican waxaasu gobonnimo maahane waa gunnimo qofka markaad aragtay dhaqankiisu inuusan wanaagsanayn dee dadku inay wada hadlaan wax ka wada heshiiyaan wax la isla xalliyo la isla keeno bal dhaqamadu sidii ay u wada noolaan lahaayeen la iswaafajiyo waa waxa loo baahan yahay maahan un in la kala cararo keliya laakiin mushkiladdu markaad xal dhan u weydo inaad ka baxdo un xiriirkaa ma ogiye markaa xiriirkaana ka baxdaa danta kuugu jirtaa dadku badi maanta
naxariis badan bay isu muujiyaan aad bay isugu dabacsan yihiin aad bay isugu nugul yihiin waxaan maqli jiray ninkaa dili ninkaa dabini qooli waa la isu kala daadiyaa yuusan kaa didin miyaa la oran jiray macnaha dadku aad bay isu kala daadiyaan waxaanad moodaa marka ay guurka noqoto inayba naxariis darrado dhan la sugaan war naxariis darrada hadda loo baahan yahay looma baahna berri markaad isguurstaan reer dhisataan naxariis darradu waa inay xiriirka intaad ku wada jirtaan ay jirto oo macnaheedu ay tahay ilan guurka naxariis darro markii ay jirto maxaa dhacda in la kala tago intaad wada socotaan dhaqan xumo oo dhanba naxariis ha u hayn inta aad sidaa tahay hubaal waxaan kuu hubaa waxa aad rabto maalin waad gaari doontaa nolosha haddiise laakiin aad naxariis u haysa dhaqan xumada qofka iyo qofkii is yeelyeelaya dadka qaarkood baa nadaafad xun dadka qaarkood baa af xun qof baad la socotaa maanta laga yaaba inuu qabaa'il caayayo qof baad laga yaaba maanta inaad la socoto isagu waalidkii u gafaya qof baad maanta laga yaaba inaad la socoto waalidkii aan la hadlin qof baa maanta la socotaa taariku salaada qof baa maanta la socotaa diinta caaya qof baa dhici karta inaad la socoto maanta wixii ilaahay u nacay oo dhan baan waxba ka xishoon markaas waxaad leedahay berri baan rajo waxaan ka qabaa inay gabadhani xaqayga garato oo surwaal bay xiran tahay oo waatan qaawano sawirada internetka daadsan yihiin war heedhe maxaad la dhoohanta xageed u jeedaa miyadan caqli kugu jirin maxay tahay dufku baxnimadan iyo dulliganaad isdhex dhigaysaa ragga dumarkaad doontid baa haw akhas baad maanta qaadan berri baad rabtaa inuu dheeman noqdo ma noqonayso sidii aad ku soo qaadatay ka daran buu noqonayaa haddaan qashinka inta tago yaanyo quruntay soo qaato guriga keensado maxaad ka filaysaa subxaan allah yaanyadaas way qurmi duqsi iyo dixiri baa ku bilaabanayso ma qofkan dhaqan xumadiisa maanta aad madadaalinaysood qaadanayso ujeeddada dhan aad isku sasabaysayd isleedahay wax walbay sallixi doontaana ay tahay sariirta hubaal ma sallixi doonto qofka dhaqankiisa qofku waa raaxaysan adna waad raaxaysan labadaa marka laga soo gudbana dhaqankiibaa bannaanka qolka loogu soo bixi doonaa haddaba intaysan halkaa kula gaarin maanta intaad wax sallixi karto sallax naxariista waxaad u baahan tahay markaad guursato uma baahnid maanta oohintan iyo filhindigan aad jilayso iyo waxaan aad isjiljilcinay looma baahna taa waxaa looga baahan yahay markaad isguursataan dadku qallayfka iyo naxariis darrada iyo wax walba oo la naco la kahdo iyo cayda iyo aflagaadada iyo farisku taagga iyo kalsooni xumada kulli guurkay la sugaan guurkii baa laysu naxariis daran yahay war maanta nin baa tahay intaasoo jeerba waxaa laga yaabaa gabadhaad la socota inaad casho geyso haddana markaad guursataa kuugu dambaysa casho dambe waxaa laga yaabaa 7 ka baxa maybe inaad casho geyso laakiin markaa wixii ka dambeeya casho ma geynaysid intaasoo sanaad qabtaa haddii lagu weydiiyo xaaskaaga goormaa kuugu dambaysay hadiyad aad u soo gado ma xasuusanaysid taariikhda haddii credit kaarkaaga historigiisa la fiiriyo xataa waxaad u soo gaday kuma jiraan isweydii maxaa khaldan gabadhu sidoo kale waxaa laga yaabaa inay nin la socoto u wanaagsan tahay u dabacsan tahay maxaad cuntay baby maxaad ku quraacatay hadduu maalintu markay dhalatay ilaa ay dhammaatay guri ka maqan hadda waxaa laga yaabaa maadaama wuuba qabaaya inaysan wicin waxaad isleedahay maxaa khaldan naxariis darradii waxaan la sugnay guryuhuna meel looga cararo wayba adag tahayba inuu gurigu dumo ma ahane inuu dumo unbaa lagu kala carari karaa xiriirkan laakiin inta hadda ku jirtaan waad ka bixi kartaa qofku waxaad odhan kartaa taleefon yar baa kugu filan keliya wax badan ma xataa laakiin filhindiga iyo baydinku badano xoogaa beer jilicsigaas iyo waxaad isku sasabaysaan baa waxay keentaa inay wax walbaaba kula seeta dheeraadaan 3 sanaan wada soconnaa gabar 5 sanaan wada soconnaa gabar oo maxaan akhrinayaa masiixul muslimkaan baraya ma kitaabka quraanka ama tafsiirkiisa isla daraasaynayna gabadhan maxaan wada baranaynaa gabadhan jaamacad baa ka wada baxaynaa waa maya macallinkayga ama macallimada maya haddaba isweydii waqtigan aad khasaarinaysa leedo qofkaan baan rabaa inaan ku barto maalin walba waxaan rabaa inaan sii barto goormaad baran dhowr daqiiqo beenoo adnaad been sheegaysa iyaduna been sheegaysa telefoon ku wada hadashaan runtii baa yaraatay lugooyadii baa badatay khiyaanadii baa badan qof walbaaba hooskiisu ka cararaya qof walbaaba midabkiisiibuu ka cararaya haddana waxaan leenahay bulshada maxaa ka khaldan qofka keliya runta sheegana waxaa leeyahay kaas waa diradiraale naaguhu necab yahay isagaa mushkilada anugu kelmadda iga hor timid ee meel walbaan ku arko gabari hadday runta sheegto soo fadhiisato waxaa la odhan talow yaa xumeeyey hadduu nin soo istaago runta sheegana waxaa leeyahay talow yaa xumeeyey mid kalaa jirta laakiin sideeda yaa wax la weydiiyaa qofka wax yaqaan qofku hadduusanba weligii soo guursan maxaa la weydiin oo ka jawaabi karayaabay kula tahay maba arkinba guuri kan guurka soo arkay ama hadda guurka ku jira oo reer kale unbaa ka jawaabi karaya ama afaaraha ka hadli kara laakiin ninaan weligii soo guursan weligiina aan reer soo dhaqin muxuu og yahay kaasu waxba ma oga
qof doobnimo ku weynaaday oo soddonka kor u dhaafay baa mararka qaar waxaad arkaysaa ka hadlaya guur afaarihii waxay isaga la tahay unbuu kuu sheegayaa mahane xaqiiqa jirta kama hadlayo qofka runta yaqaana allahna subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi fas'aluu ahla adikri in kuntum laa taclamuun maahanoo keliya dadka ahludiinka in wax la weydiinayo ahludiinku wixii diinta ku saabsan haddii injineeriyad iyo wixeeda ay noqoto iyo qaabka naqshada wax loo dhiso qofkii yaqaanaad weydiin business iyo ganacsi see loo abuuraa qof baa la weydiin xaaladaha kala duwanee adduunyadoo dhan bay ku saabsan tahay nin baa waxaa la yidhi gaal ah baa wuxuu u yimid nin muslina oo diinta dee laakiin si fiican u yaqaan markaasuu wuxuu ku yidhi qur'aanka soomaad oran wax walba waa ku jiran markaasuu yidhi haa wuxuu yidhi kiishkan burka intee xabbo rootiya ka soo baxaysa kiishkan markaasuu wuxuu yidhi wax yidhi kaadi nin buu u yeeray ninkii baa u yimid oo wuxuu yidhi intee xabbo rootiya baa kiishkan burka laga samayn karaa markaasuu yidhi warukaadi bal ha u jawaabine anigu kumaan weydiinaad cid weydiisay waxaan ku yidhi qur'aanka iiga soo saar markaasuu wuxuu yidhi rabbigay baaba ifarayo ilaah fas'aluu ahla adikri in kuntum laa taclamuun intaasuna waa cilmi dabcan aan isleeyahay ka faa'iidaysta haddaba qofka wax yaqaanaa wax la weydiiyey qofaan waxba kala ogeyn oo adduunyadaba waxba soo arkin oo weli iskaabula ah oo habeen walba sariirta keligii ku dhex galgashaa muxuu kuu sheegayaa bay kula tahay mala awaalkii wuxuu filimada ku arkay iyo meel wax ku qoran iyo aaraa'da bini'aadamkuu soo bowdsaday unbuu kuu keenaya haddaba dhammaantiin intaynu podcast kale dib ugu kulmayno naftayda hadday gaarto asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh